kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka gudaha iyo dibadda ee warbaahinta Midnimo Media qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah kulamo looga hadlayo aayaha galmudug oo ka socda magaalada Dhuusamareeb iyo wasiirka arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya oo ku wajahan dawladda Soomaaliya oo arin cajiib ah sheegtay inay ku maamuusayso hodan naale mas'uuliyiin ka socda hay'adda IOM iyo ururka IGAD oo kulan la qaatay wasiirka tamarta dawladda Soomaaliya iyo waxyaabihii ka soo baxay kulankaasi oo la shaaciyay tababar loo furay odayaasha soo xuli doona xildhibaanada ka mid noqonaya maamulka Jubbaland James Swim oo Ahmed Madoobe sheegay in uu kala hadlay fariinta beesha caalamka askar ka tirsan ciidamada Kenya oo qarax la beegsaday iyo Talyaaniga oo gacanta ku dhigay hub ay ku jiraan gantaalada lidka diyaaradaha waa 16 bisha July sanadka 2019 intii aad daawateen waxa ayaan qodobada ugu waaweyn warka warbaahinta Midnimo Media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe leh waxaana la diyaar qodobadaasi oo dhameystiran Axmed Xasan Suleymaan mahadsanid Farax Cabdi Trabbi wafdi oo hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa ku wajahan magaalada Dhuusamareeb wasiir Sabriye ayaa horey dhowr maalmood ugu sugnaa magaalada Dhuusamareeb isagoo qayb weyn ka qaatay heshiiskii madaxda ahlu sunna ee ku biiray galmudug iyo dawladda federaalka isla markaan uu dadaal u galay xalinta dawladda federaalka iyo madaxweynaha galmudug ujeedada wafdiga wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ee magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu sheegay in la filayo in maalmaha soo socda lagu dhawaaqi doono guddiga qabashada shirka dib u heshiisiinta dadka reer galmudug wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Iswan ayaa sheegay in loo baahan yahay in deegaanada Jubbaland ay ka qabsanto doorasho xor oo xalaal ah taasoo ku dhacda waqtigii loogu talagalay James Iswan iyo madaxweynaha Jubbaland Ahmed Madoobe ayaa shalay kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo waxayna sheegeen in ay isku raaceen in aan la soo faragelin doonin arrimaha doorashada Jubbaland balse taas bedelkeeda loo baahan yahay inay qabsanto doorasho xor oo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziyo Maxamed Sheekh ayaa xafiiskeeda ku qaabishay wafdi ka socda hay'adda IOM iyo urur goboleedka IGAD waxayna ka wada hadleen fulinta mashaariic lagu dhisayo xarumaha wasaaradda mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa ka wada arinsaday hirgelinta mashaariic lagu dayactirayo xarumaha wasaaradda tamarta oo deegaameysan doonto xaruntii hore ee wakaalada biyaha xamar ee degmada Wadajir dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la filayaa in mashruuca abaalmarinta ee sanadkan ku maamuusi doonto Allah u naxariistay hodan Axmed Saciid Naale oo jimcihii hore ku geeriyootay qaraxii ka dhacay Hotel Madiina X Cascasay ee magaalada Kismaayo marxuumada oo ahayd hooyo 43 jir ah oo saxafiyada caan ah waxay iyada iyo saageeday marxuum Fariid Jaamac kamid ahaayeen 26 qof ee ku geeriyootay qaraxii Kismaayo ka dhacay jimcihii la soo dhaafay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cabad waxa uu xaqiijiyay in wasaaraddiisu bixinayso abaalmarinta hodan naale award si loogu maamuuso dhiirigelinta nololeed ee marxuumada guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka dawlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo tababar ugu furay odayaasha dhaqanka ee Jubbaland tababarka loo furay odayaasha dhaqanka Jubbaland ayaa waxa uu yahay mid lagu barayo soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dawlad goboleedka Jubbaland oo dhawaan ka bilaaban doonto deegaanada maamulkaasi warbaahinta gudaha ee dalkaasi Kenya ayaa sheegtay in ciidamada ilaalada xuduudka ee Kenya lala beegsaday qarax ay ku dhaawacmeen laba sargaal oo ka tirsan booliska dalkaasi saraakiisha booliska Kenya ee la dhaawacay oo xaaladoodu aad u liidato ayaa la sheegay in loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Lamu ee dalkaasi Kenya qaraxaasi ayaa la sheegay in uu ka dhacay wado isku xirta deegaanka Kiyunga iyo xuduudda Soomaaliya waxaana qaraxaasi lala beegsaday gaari ee ciidanka Kiyatiga ee wateen booliska dalka Talyaaniga ayaa sheegay in ay baaritaano ku heleen gantaalada lidka diyaaradaha boobayaasha fudud iyo qalabka laga tuuro gantaalada hadal ka soo baxay booliska dalkaasi Talyaaniga ayaa lagu sheegay in hubkaasi la soo qabtay xilli baaritaan lagu hayay kooxaha xag jirka naasiyiinta cusub ee midigta fog ee degan magaalada Turin
ee dalkaasi Talyaaniga iyadoo hubkaasi laga helay musharax ka tirsan xisbiga faashistaha ee Forza Nuova Part. hubka la soo qabtay ayaa waxaa kamid ahaa qoriga boobaha ee lagu magacaabo Scorpion, qoryaha fudud 20 baynaad iyo 800 oo xabbo oo rasaas kala duwan ah. guud ahaan daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayna war wixii dalka idaafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad kala socoteen Midnimo Media. waxaana warkaasi wadajir halkan idinkaga soo jeedinayay Faarax Cabdi Tarabbi iyo anigoo Axmed Xasan Ramaas. tan iyo kulan dambe nabadgelyo.